maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsigan doonina adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay aryaada heer kala maanow xalay si reeysan u seexda farxadna waa la soo kacay abdullahi islaantiya mataanakiin dhalay xilkii lagu magacaabay miyaa la ansixiyey war ma jannada daaqad laga tusay maqaamkii muqdisho miyaa la ogolaaday aryaadaha waxaa soo dhan walax ka gadisanaan maqlayo hubuuru kiyaatoo calaacalayaan dhegeystay oo dhahaya Soomaaliya nagu soo xadgudubta xuduudkii ay nagu soo dhaaftay wadankan yay ciidan soo geliso waa wareey beesha caalamkana waxaan u sheegaynaa haddaan Soomaaliya lana ka qaban dhibaato dhici doonta haddaanba marqaati ka ahaada asagoo dhahaya 30 sano la soo dhaafana waxaan maqli jiray oo dhagtayda ku soo dhacay Soomaalidoo dhahaysa waa nala ku soo xadgudba waa nala soo faragalsha waa nala dulmihaya arikaalaya armara ka ahaada muga hadii kuwa nagu xadgudbi jiray bariga waa nala ku xadgudbay dhahayaan horumar Soomaalidu gaarta iga dhataas hore waxa loo yiri nin walba waxaad fashay filo waa lagu falayaa war mar hore mayba leeray lankitiin abuurada timir muguridow war waxa la yiri xadgudba waa lagu xadgudbaa xishoodana waa la xushmeeyaa aryaadaha waxa hore loo yiri kalaamaadad ka sitira katitay komba kulatal kalaamaadad ka sitira katitay komba kulatal waxa kale heesii 77 kamid ahay heesanti masiya god madax shabeelefta maalkeedii waa galay abdulla waliba kala horlangalay inta haanta qabada qaarka sare banaan yahay taa kana qabyada tahay qalabku waan sideynaaye ma jirto he qabyo waa halkeediina waa jirta Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayso aad ka tagtay warnimayo waxa la yiri dulma inay wado Kenya ay inugu soo duushay waa mid uu dadweynuhu arkoon inaga dahnayn diyaar baan dalkeenana u nahay inaan difaacna qolkalo Itoobiya dunto doorada jira oladuuga way ina dhextiin aad u daba dheere maxaa noo damaanada inay daacad tahay taas war isku dirka madaxda iska daayay niman yahow geedkana fadhiidin siyaasadii adduun lama socotiina madaxweyne farmaajo Uhuru Kenyatta qadka telefoonka ku wada hadleen war Uhuru Kenyatta wax badan oo farmaajo telefoon ku dhageystaa la yiri ma saamaanta soo wactamay inuu soo wactamo danta tiri waxay tani keentayo olba derisila noqde miyuu yiri telefoonkan diraba farmaajan iga qabay yaray war kallayba ninkii dan lahaa wax wacee labada madaxweyne waa wada hadleen Twitterka fila Soomaaliyana waxa lagu qoray in laga wada hadlay deris wanaaga iyo ammaanka xuduudda in la dhowro mar dambana aan la isku xadgudbin war waxa kale lagu heshiiyaa la yiri in laba gudi la sameeyo oo ka wada shaqeeya xiriirka labada wadan warnimaya waxaan xan ku maqlay in madaxweynaha Kenya xafiiskiisa fadhiya ay bisad madow daaqada uga soo gashay dabadeedna uu mooday ciidankii gorgorow soo daatay dabadeedna uu kursiga si halhaleela uga booday markaa ka bacdi madaxweyne farmaajo soo wacay baa la yiri war soo joog ninka laga waayo soo jiif baa laga helaa Uhuru markii danab u soo dhacday ma yiri iko matata lakini war madaxweyne farmaajo ayaa Uhuru dejiyo wuxuu yiri akuna matata war batati soo gado miyuu yiri hubura musuri saana ma yiri war Kenya ciidankayga waa la baxaynaa bay yiraahdeen ma cabsi baa u geysay aryaadaha Kenya ciidankeedu amba ha joogan amba ha la baxeen waxa la dhahay weewe waxaad wada jooji waryaada kala maanta guul wadanimadiinu waa saa'ide makaankii aad u heesteen aryaha wareerin kala maan Kenya iyo Soomaaliya dhexdhexaad kama ahe waa Soomaali dhabahe warnamiyo nimanta kala maan leeyay dhagan Soomaaliya boqoradaasaan baysan dawlad amalo ama jiir amalo lankiyo ka degan fadayaan afuufayaan marka hore warnamiyo war ma haysaane ambassador Awliyo hadda ka hor 42 qof oo maxaabiis Soomaaliyeed oo Iran ka soo daay war ambassador Awliyo mashiica haddana 8 qofood ugu dambeysay ayuu ka soo daay marka airport ka soo bixi lahaayeen
waxaa ku soo aaday amarkii wasaaradda caafimaadku soo saartay oo ahaa 20 beri dalka dibadda loogama imaan karo marka awliyo iyo maxaabiistu uu soo daayay Iiraanay ku wada xayiran yihiin war wasiirka caafimaadka markay leedahay Iiraan iyo Shiinaha ma laga imaan kara Soomaalida wadamadaas ka imaanaysa yaa mas'uul ka ah war may baa liyaabsana wasaaradda caafimaadka may artay qofkii udurka corona lanka shakiya isbitaalka Martini lika karantiile marka hadii isbitaal Martini hadiiba karantiin lanka talagali dadka Soomaaliyeed ma Iiraan lanka karantiil anta may sheeno may ka karantiilo isbitaalka war ambassador awliyo gormo Iiraan safiirka ka noqday sawtii xiriirka loo jaray ma ahayn war ambassador awliyo waa ninka ugu weyn xoog wadaniinta meel kastana safiir uu ku yahay Iiraan safiirka ma aha macaamil ay leeyihiin aryadaha hadda ka hor muggi Ciraaq iyo Ameerikaan ku dagaaleen feeriyahan ka weynaayo Maxamed Ali Kalaay hayehe feero fadaay arrimahan hay ka dhex galina Saddam Hussein oo u tagay kadibna siyeed qofood oo Ameerikaan heedo maxaabiis heedo ka soo deeyay kadibna waxa la siiyay bilada nabadda adduunka ee Nobel Prize muga awliyo ayatullaahi Khomeini xiriirka u goynay minuu qonto qofood oo maxaabiis ka soo deeyay ma asagaan mudnaan in Nobel Peace Prize la siiyo naftirkiisu ambassador awliyo uu mudan yahay in la siiyo Nobel Peace Prize laakiin qolada bixisa Ameerikaanka kala qaalisan Soomaalida war annagu ma siinno maxaan ka rabnaa cid kale inay siiso war may siyaasan madbacadii qoraalkaas daawa Allah ay tib masiin suubsana war abaalmarin madaxdeena waa bixiyaan Ra'iisul Wasaare Khayre wuxuu bila sharaf guddoonsiiyay ugaas Xasan ugaas Khaliif ilaahay barga kadib balaayo looma keeno ma yirihe war ugaas Xasan ugaas Khaliif wiilku abtiga waa Xasan Sheekh Maxamuud barigu madaxweynaha ahaa waa tay isku murxeen Ra'iisul Wasaare Khayre maxay ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen baan u malaynayaa in Ra'iisul Wasaare Khayre uu yiri ugaasiyada dalkayga ka taliya xushmad weyn waan u haynaa war biladaas ugaas galisiyo waxay hordhac u tahay doorashada ka dhici doonta Hirshabelle war Hirshabelle waara gareen baa joogay maxaa doorashada lagu falaya war waara gareen waa isoo la ogaadeen goodaha gareen ka mudug gareen yaa gooda xadaan gobolaadan waa guubeen war waxaa la yidhi ceel cali meeshii dhagaxa qaaligaa laga helay shabaab iyo macaawusleeya isku dagaalay beesidii dhagax ilaah ka gad yeelishanay ma dhagxa kale oo koobaha laga helay war macaawusleedu miyay waalan tahay la dagaalanka al-shabaab dawladdaaba ka xishootay war taliyaha macaawusleeya wuxuu yidhi ninay al-shabaab u doorteen nabadoon asaga ilaaladiisa waa dilni war macaawusleey maxaa ku dhacay dhaqankaasoo kii shabaabka mu ahayn war warkaan ugu daalinine macaawusleey waxay yidhaahdeen dagaalka joojin mayno war ma haysaane shabaab xalay cirkaa looga soo dhacay saldhigii ay ku lahaayeen Saakow iyo Jilib ayaa duqayn lagu harqiyay aryadaha hore waxaa loo yiri magaalada aan ka dego miyigana aan kugu dilo manfaacada aan ka cuno adiguna ka macaluul maqaarsaarna ii naqo miyay bariga nugu maraysa war aniguba waxaan maqli jiray wanka macaasha ii qabo adna gowracii mare dhiigana aan muudsado war may banaganay ka aalay lan oo gobadan danti ii waqtiga durdurki ii biyo darka arga u dareelko ooman war adeer ku afgaran maynee maxaa durdurinaya wareeda war ma haysaane madaxdii madasha xisbiyada qaran waxay ku shireen Istanbul oo Kenya ma ka badisheen imaaraadka isku dhaafeena xabar miyaa loo diiday Ethiopia ma laga xidhay yaa Turkiga goorma la isla ogolaada in lagu shiro duruufa keenta meel walbana waa lagu shirayaana dhageyso waxay ku heshiiyeen baa leeydi hal xisbi inay samaystaan hal musharaxna ay yeeshaan marka waxaan u malaynayaa bur iyo biyo in loo kala bixi doono ma waxay dhaheen darigi farabataa waa fuud xaraareeya maya may baareen ambuul galnya badiin mangrong waraan ku walaayde dawladda Soomaaliya xadka Kenya ay soo xiraysaa wadadii afgooy Muqdisho u dhaxaysana amni daraa loo dhisi waay war jidka afgooyoonay hamaran dhaheeye hamiinkiina walka dareere walaari ilaa waa ka bariyaw maalintina quful weyn la saare war nin Soomaali habeen madow wuxuu yiri maxaad wadaa liima dhihin maxaad haysaa la yiri waraan idin waale hay'adaha dawladdu waxay sheegtay Soomaaliya inay ka dhacayso doorasho qof iyo coda bal cad iyo afgooyana lama tagi karo aryadaha aniguna aan idin waale hay'adaha dawladdu waxay sheegtay dayuurada Soomaali Airlines inay soo celayso ammaanka dhulkana lama haayo war ay waalateen hay'ada dawladdu waliba sheegday Soomaaliya oo deendilka FAO laakiin waliba liyaabsana dal oo laagan lahayna deen walku FAO war Puntland iyo Jubaland waxay dhaheen beyle mardama kala ma hadlayna deen cafinta kalena shaqeyn mayno kalena shirmayno bahwiin
guddi reerleen israheena maayahe waraan waale hayadhaha dawladdu waxay sheegtay in shidaalkii la soo saarayo maamulkiina waa lagu heshiin leeyahay warnimay waan idin waale hayadhaha dhihimayno xaadma waale hoon kaa sidanaa qaran dumisaa tahay haddaan inaad nawaasho diidnay ma qarandumisaanna war madasha loo bixiyey muqdisho forum habeenkii saddexaadaa la qabtay ma mar kalaa la isku feeray maqaamka muqdishiilanka hadalay war dastuurkii maa looga dooday war meelay idinkaga dhegan tahay waxaa looga dooday doorashada iyo sidii ay dhallinyarada uga qaybgeli lahaayeen tahliil shaataxna wuxuu yidhi madashaan waxaan u abaabulnay in bulshadu aragtidooda soo bandhigaan war xaliimihiinay beledweyne jirtaa doorashona ma qaban warnimiya war mahaytana sheekh shaakir iyoonay wafdi hogaamiyaw yaseedan garow waana mayba kabiiran hirti maalin mahmuud war mawlicii dhuusmaraab ku yeele miyaa garowe laga furay war jaamacatu raq ayaa la raray ordheed mashiiqii shiiq yadaanu soconaa ay dhaheen war saas maarna may baaraana macalinkeena mahmuudo maasha allaahuye maantaana ku nimide meel maan tagaynaaye yere war dawladdan korona ku waalatay shuumbiyoodka hirshabeelle ka socdo ma wax laga qabto war qoorqoor iyo cabdi qiibdiid oo showray arkay maxay u sheegeen shubanbiyood nadaafadda maa lagu dadaalo waryaa taalibaan iyo maraykanku waa heshiiyey balaaya idinkuma dhacdee warrin baa disha waryaa weligeedaa leesdili jira